السلام عليكم. معلمات فرنسيسة ayaa arday muslima ku qasabtay inuu sawiro Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatee maxayse kala kulantay oo kooyay maclimadan aniga ayaa idin sheegayo balse inteenan u gudagelin muuqaalkeena fadlan muuqaalka like saar si aan u ogaano inta muslimiin ah daawatay muuqaalkan hana hilmaamin inaad subscribe saaratid channelka Dacwo Tube kuna soo dhawaada muuqaalkeena markii uu ku dhawaaqay madaxweynaha Faransiiska waan sawiraynaa sawir lagu xumeynayo Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatee ayaa maclimad Faransiisa ka dalbatay ardayda inay sawiraan sawir Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatee lagu xumeynayo ardaydu waxay soo galeen fasalka markii ay fadhiisteen ardayda maclimadii ayaa ku tiri ardayda maanta xiisadeynu waa ay ka duwan tahay xiisadaheeni hore oo maanta waxaan idinka doonayaa inaad sawirtaan sawirka Nabi Maxamed calayhi salaam hadda waxaan idin qaybinayaa warqadahan cad waxaan idinka doonayaa inaad sawirtaan Nabi Maxamed calayhi salaam laakiin fasalka waxa ku dhex jiray arday muslim ah ardaygii muslimka ayaa qalinka kor u taagay si uu maclimadda su'aal u weydiiyo laakiin maclimadii ayaa ku tiri maya hadda su'aal ma doonayo ee waxaan ka doonayaa inaad warqadda ku sawirtid Nabi Maxamed calayhi salaam ardaygii muslimka ayaa gacantiisa dajiyay isla waqtigaas ardayda kale waxay bilaabeen inay sawiraan sawirka Nabi Maxamed calayhi salaam laakiin ardaygii muslimka ahaa ma uusan sameeynin waxa ay maclimaddu ka doonaysay halka ardayda kale ay ahaayeen kuwa sawiraya sawirka Nabi Maxamed calayhi salaam maclimaddu waxay dhex mareysay ardayda dhexdooda waxayna ahayd mid fiirinaysa waxa ay sawirayaan ardayda ardaygii muslimka ah waxa indhihiisa ku soo istaagtay ilin waxa uuna ku sigtay inuu fasalka dhexdiisa ku ooyo warqadii ayuu bilaabay inuu ku dul fikiro ilaa uu ka helay fikrad wanaagsan waxa uuna bilaabay inuu sameeyo fikradii ku soo dhacday halka maclimadii ay wali kormeereysay ardayda